dalka maraykanka maleshiyaad isku abaabulay oo ka tirsan kooxaha cadaanka ee midigta fog ee wadaniyadu ay madax martay ayaa bilaabay inay qafaashaan oo qabqabtaan qoxooti si dhow Malaysia uga soo tallaabay xadka Mexico. waxaana maleeshiyaadkan oo aysan cidna darsan meelo garigo'ana ay ku hayaan soo galooti qurumo kala duwan isugu jira oo dumar iyo carruur ay ku jiraan. maleeshiyaadkan oo hub casri ah ku hubaysan wadana baabuurta dheeraysa ee dhulka qarfaha mara ayaa lagu arkay iyagoo gaaf wareegaya xadka New Mexico, waxayna sheegeen inay gacan siinayaan ciidamada ilaalada xuduudaha, waxayna ku handadayaan qoxotiga hub iyo weliba ay wataan. dowladda maraykanka ayaa u digtay kooxahan maleeshiyooyinka, waxaana laanta FBI-gu ay gacanta ku dhigtay horjoogihii maleeshiyaadkan Larry Mitchell. bal haddaba ila daawo wacdaraha ka dhacay xadka maraykanka. Another group adding to this that got way up the tracks. Holy cow. Okay, I don't know how many are coming down the way. They're adding to it. I'm watching you hugging the sun right now. You're trying to get into the desert. Now he's really tracking it, right? Look at this. Unbelievable. Watch your back. They just keep coming. Both these guys are training one kid. Yeah, there's a lot here now. No, ven acá. Ven acá. Acá al frente. Acá. Now. There you have it, folks. This is what happens every night in the world on the border. Take a good look. Check. Men are the ones that all just showed up. They were the runners. Ones with the little children, the women and the children.